habeenkii labaad markii aan baranay subaxii ayaa aroortii uu dagaalku lagu qabsaday dagaalkaas wuxuu ka xoog badnaa kii 19 ka dhacay waxa lagu yiri weerarka subaxda ay soo qaadayaan ay madaafiic ka horeysay oo ay ku dhaceen waliba guriyada idinka ay joogteen adiga iyo xubnihi kale kula socday runtii dagaalkaas wuxuu qorshaysnaa horta in anaga waartay nagu dhibaateeyaan meesha ciidanka uu deganaa Soomaalida oo horin kamida ay deganeed guriyaha ka dambeeya ayaan habeenkii koowaad ku degnay meeshaan ku degnay isla habeenkii labaad meeshii maana degnayn qayb meel kale ayaa naloo waciyay marka xogta iyo hawsha way hayeen hubiyaasha meeshay ka bilaabeen ay ku bilaabeen waxay ahayd guriyihii aan ku soo degnay habeenkii hore iyo xerada ciidankooda ugu deganay ilaahay waxba nagu yeelin isla markaana haddana baabuurka qaraxa waxay ku dhufteen waa isla soonihii waaye oo ay weerar ku soo qaadeen بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونكسن داوديال وحنا حسين عبد الله كسر هذا ورئيس الجارة وعلى يلان دورنا حلبان أحمد شيخ محمد مشروع وكم إذا حبناها قلها شعبك برلمان كومي تبناد الصومالية وحصلوا كلا قيبك هاي مسؤولين قلها شعبك كتر سنة أو قبر كبكول الصومالي أتجي إلا اللي رجل يعيد مدى الدولة الفدرالية كصوماليا أو مدة كاس كل دجال ماش على الشباب قبر كاسدوا كلا حكم إذا مالها يصير درن أصلا يصير عبارة درك كتير xilbaan soo dhow waxaad iga warantaa safarkaagii bakool iyo howlgaladii halka ka socday maxaa ku soo aragtay waa dhawahay anaga 23kii Juun yaan ka tagnay anagoo xilbaano fara badan oo wasiiro xukuumadii hore iyo sanatarada isugu jirna ruuxaantii waxaan ka degnay Ceelberde waxaana 19kii Juun oo ka horeeyay dagaal adag ka dhacay saddex meelood oo cadawga shabaab ay weerar ku soo qaadeen waxayna kala ahayd aato yeed iyo shaqo runtii dagaal culus oo khasaaro badan gaarsiiyay ayaa jiray deegaanadaas iyo barakac rabaha xunna lagu dhuftay shabaab dhimasho iyo dhaawacba ay gaadheen bulshada iyo ciidamada federaalka ee Soomaaliya meesha joogay iyo kuwa shacabka intuba arinta anagoo ka duulayna ayaa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamza wuxuu baartay ka wada hadalay sidii ay u gaari lahayn oo xaaladda jirta awalba iyadoo dadkaas oo abaar meelihii ugu roob yaraa Soomaaliya ayuu gobolka Bakool ka mid ahaa saddexdii xilli ee roob ee la soo dhaafay taasna saameyn bay ku lahayd waxa saameyn ku lahaydna go'doon xoog leh oo shabaabka ay geliyeen waxaaba ugu roonaaba deegaanadaas haddaan ka hadlahayo Ceelberde ilaa Qurac Joome oo xuduudka ku yaala oo xagga Itoobiya u furnaa runtii kuwaas xoogaa dhaqdhaqaaqooda iyo waxayntooda waxay ku dhaameen kuwa kale laakiin xudur iyo waajid iyo tieglow iyo rablu rool haysto ilaa buurxulle shabaabku haystaan kuwa shabaabku haystaan baa xitaa ku dhaqaaqoon kuwan kale oo maartay xudur iyo waajid kareetay wax loogu soo galiyaa loodi wax cirka ka yimaada mooyeen bulshada marka iyadoo dhibaatada qabtay ayaa dagaalkaas ku dhacay marka barakac xoog leh ayaa meeshii ka sameysmay safarka saasan u aadnay marka yaa la dagaalamay al-shabaab ma ciidamada dawladeed ba mise dadka deegaanka ciidamada abaabuleen waxaa la dagaalamahayay saddex qolo oo kala gedisan meesha maadaama xuduud tahay waxaa jooga ciidanka new booliska oo run ahaantii kaalin weyn deegaanadaas inay kuwa ka duwanaadaan xuduudka ku yaala saldhig u ahaa abaal aan ugu hayno dad nala dhashay oo naga mid ahaa laakiin ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida ahaa run ahaantii muddo dheer ayay difaac labada dhinacba oo xaggooda iyo xaggeennaba ay ku jireen marka kaalinka ugu weyn ugu muhiimsan difaacaas culayska ugu weyn oo ku dhacay runtii khasaaraha ugu xoog badanna qaybta ugu muhiimsan gaarsiisay cadawga waa wiilasha ciidanka new booliska ee Soomaalida waxa kale oo runtii aan marnaba la waxaynaynin inkastoo hal urur ay yihiin oo saddex xurmood oo horin Ceelberde joogtay horin yeed joogtay iyo horin aata joogta ay yihiin hubkooduna ay u dhameystirneen wiilasha Soomaalida oo ciidanka federaalka ka tirsanaa waxa inta dheeraa
shacbiga deegaanka oo mar walba arrintaa u tabashnaa oo qoryahooda iyo hubkooda haystay markay xabad dhacdo qoryaha qaatay oo dagaalka qayb ka ahaa oon cid u kala hadhay jirin marka arrintaasu dagaalka saa u dhacay iyo baaxaddaa lahaa ceelberde iyo qurac jooba marka laga reebo wuxuu saameynta xuduudka dagaalka uu ka dhacay waxay ahayd 45 waa tii ceelberde 45 waayeed 45 waa washaaqo waay inta kiiloomitir ay isku jiraan marka listii 200 kiiloomitir bay hal mar weerar ku soo qaadeen xuduudka u dhaxaysa ciidankaas marka ay weerar ku soo qaadeen waxaa daba yaalay ciidan ay gudbiyeen oo ay gudaha Itoobiya u gudbiyeen oo ay ku talagaleen inay ilaa ceelkari iyo Oromiya ay gaadhaan marka adiga wadadii ay ka lubeen 100 kiiloomitir meel ku jirto oo iyadna hawd kale ah ayay galeen marka dagaalkan xuduudka markuu ka socdo isla habeenkaasba waxay gudbiyeen 17 baabuur oo tiknika oo nooc walba isugu jiray ciidanka saara ilaa Itoobiya gudaha u gudbiyeen marka dagaalkaas gudaha ka socda iyo midka xuduud ka socda isku socday isagoo dagaalkii socda ayaan marka anagu gurmud meesha ku tagnay waxa iga warantaa waxa la sheegay dagaalkaas inuu khasaaro xoog la geystay muddo maalmaan waa socday ma la sameeyay jira koob ogaan kara ama lagu xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dhimashada dhaawac ruuxantii dagaalkaas labada dhinacba waan ka warhaynaa wixii anaga xagga anaga ahaa marka la isku daro kuwa xagga new police iyo xagga federaalka way jireen dhimasho dhaawac xoogan ugu jira ruuxantii waxaan ka mahad celinaynaa anaga wixii xagga federaalka ahaa inay dawlad deegaanku arrinta iska xil saartay oo la qaaday oo lagu dabiibahay ilaa hadda goday wixii dhintayna Allah u naxariisto xagga kalena ayaduna de saasoo kale tay la mid ahayd dagaalka socday oo xuduudka ahaa waxa markaas kii gudaha jiray baa iyagu haddana dagaal ku hayeen culays kala keenay kii xaggaas feerfeer ay ku soo qaadeen isla qorshu ahaa run ahaantii wiilasha Soomaaliyeed oo geesiyaasha ah 10 ilaawaan ayaa loo dhigay ashabaab وانا لجبي دقيبه هawsha ay socoto ayaan nagu meeshtagnay markaan aata marayno habeenkii aan ku dheermanay maalinkii labaad raashima aan wadnay iyo shacabkii iyo wixii la kulmay habeenkii labaad markii aan barnay subaxii ayaa runtii uu dagaalku u qabsaday dagaalkaas wuxuu ka xoog badnaa kii 19 ka dhacay ka wuxuu dhacay 27 baan tagnay 29 ayuu dhacay dagaal suuxii bilowda oo ilaa 6 saac maalmood 3 goor ay soo rogaaciyeen oo la jabiyay runtii waxay wateen tiknikadii iyo qalabkii ee Amazon ka furteen ciidamada Soomaaliya ka furteen horey u haysteen oo Zuuyale oo beebeeyale oo baabuurtii kaleeto oo Amazon ta ay lahayd oo qafilsanaa ilaa laha hub culus oo casri oo ay ku talagaleen inay ku jabiyaan oo aad moodo hubkii qalabkan haysan inuu ka casrisan yahay inuu wax laga qaatay ciidamada Amazon ciidamada Soomaaliyeed mise waa waliimad ما مالك كلي ما دين مجران وقوي حريه عندما يقولن وآخر أي كقاتل قوي برامج كيس لكن يدو بابوكو بابا أو صعود حدد كده هي وليش شغلين هي أنت الوفري بسوكها أما رجل كلا لقد دادين وخسارها جيستان لكن ولا دفاع وحاول يميت كودنا واقع waxa lagu yiri weerarka subaxda ay soo qaadayaan ina madaafiic ka horeysay oo ay ku dhaceen waliba guriga idinka ay joogteen adiga iyo xubnihi kale kula socod runtii dagaalkaas wuxuu qorshaysnaa horta in anaga waartay nagu dhibaateeyaan meesha ciidanka uu deganaa Soomaalida oo horin kamid ay deganeed guriga ka dambeeya ayaan habeenkii koowaad ku degnay meeshaan ku degnay isla habeenkii labaad meeshii maana deganayn qayb meel kale ayaa naloo waciyay marka xogta iyo hawsha way hayeen hubiyaasha meeshay ka bilaabeen ay ku bilaabeen waxay ahayd gurigii aan ku soo degnay habeenkii hore iyo xerada ciidankood ugu deganay ilaahay waxa lagu yeelin isla markaana haddana baabuurka qaraxa waxay ku dhufteen waa isla soonihii waaye oo ay weerar ku soo qaadeen meeshii habeenkii hore aan deganay gurigii marka koowaad raacay koowaad way soo gaadheen madaxooda
inkasta oo waxaa weeye ay dhibaato kala kulmeen marka ma oran karnaa dagaalada safka ballaaran ahaa oo dhowr meel ka dhacay ama hiiraan noqoto xuduudda Soomaaliya Itoobiya bakool Itoobiya gudaheeda kuwii galay waxaasoo dhanba waxay ahaayeen wax la abaabulay oo hal ujeed hal hadaf lahaay oo la rabay in gudaha Itoobiya lagu galo waa ogeyn qorshahaas annaga muddo sanad ku dhawaada xogta abaabulkoodii iyo qorshahooda uu jiray kuwan hadda dagaalka xagga ka soo wada oo TPLF iyo guud ahaan hawshaas in ay kaga faa'iideystaan oo ay dadka faraha badan oo dhulka buuraleyda oo hawdka ku jira oromada ay gaadhaan oo halkaas oo ay marka baysas ay ku dagaalamaan ay ka sameystaan yaa qorshahoodu ahaa oo ay gudbaan isla markaana waxay islaayeen xoogaga meesha jooga waad shiiri kartaan qalabkii iyo waxay u soo diyaarsadeen iyo qorshe ay sameeyeen laakiin waxay ku noqotay riyo cashar ay si sahal ah uga gudbi karin ayaana waxa weeye hawsha iyada ragii galay gudaha Itoobiya markii aato dagaalka ka socday ee dhowr iyo 10 gaari watay tiraduna boqolaal lagu sheego xagee ku dambeeyay ma wali Itoobiya kuma qiimo soo ilaa 500 ilaa 1000 waxa u dhaxaysa 700 1000 ilaa 500 inta dad u dhaxaysa ayaa la sheegay dadkaas waxa weeye waa la soo baawaa wax la qabtay iyo wax la dilay baa laga dhigay Itoobiya ma jiraan waa waxa weeye waa soo aftiray waayay ciidanka Soomaaliya soo aragtay aan tirada badnayn mudan xilibaan noloshooda waa sidee waxa la sheegay bakool inay kamid tahay meelaha dayacan oo aan muddo dheer ciidamo loo tababarin ciidan la geynin saanad ciidan aanan helin nolosha ciidamada waa sidee waxyaabaha runtii xanuun kale oo aniga sida saameynta gaarka ay ugu leh waxa weeye ciidanka ururka ah oo 300 iyo waxoogaga ah waxa weeye marka laga reebo hubka aan uga soo ururnay reeraha shacabka xagga dawladda federaalka waxa ka gaaray waa 100 qori weyn hal baabuur oo qalab ciidan ah oo ay haystaan ma jiro waxa ay haystaan waa small army yar waay حتى قريها سبك باسوكياشا waxa aanu anagu siyaabo kale ugu keenay oo loo soo iibiyay way oo aan badnayn oo hal laba saddex ah waa kuwa ciidankeena xagga militariga marka waxa kale ku xoojinay waxa weeye ciidan bulshada iyo shacabkii aan ka soo ururnay oo kuwa aan ku sheegayna oo dadka xoolo dhaqataha iyo kuwa magaalada joogay waxay haysteen saameyntaas oo xagga ciidankaas dayactirkiisa iyo qalabkiisa iyo tababarkiisa iyo guud ahaanba aad moodo inuu ka duwan yahay deegaanada kale ee Soomaaliya hawsha jiriya barnaamijkiisa waxayna muhiim u tahay arintaas xuduudka xagga Soomaaliya iyo hawsheeda ku jira waxay muhiim u tahay arinta xagga difaaca Soomaaliya iyo dawladnimada iyo qarannimadka waa jiidii hore weeye maadaama ay jiidii hore tahay muuqaalka qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed maadaama dawladaha Itoobiya ay ka mid tahay dawladaha Soomaaliya runtii indhaha isku hayaan meeshaas dawladda Soomaaliya waxa laga rabaa cudud muuqato oo habaysan oo xuduudkiina ilaalinaysa sawir fiican ka bixinaysa ashaabkii iyo cadawgiina diyaarinaysa meesha marka waxa ka jira dayax xoog badan oo hawshiisa runtii aanu golaha shacabkana ka horjeedinay aan rabnaa inaan xukuumadda iyo dawladda federaalka aan la wadaagno waxa kale oo meesha ka jira waxa weeye dayacii kale oo abaarihi iyo colaadii ay keentay oo shacabkii meesha deganaa oo ka baraka waa maasanta abaara waa waxba ka weydiin doona laakiin maxaa keenay in bakool ay heli weyso taageero ciidan ama loo tababaro ama hub la geeyo ama gaadiid maxaa u heli weyso asla muddo dheer waliba ayada go'doon ku jirta run ahaantii waxa weeye deegaanadaas waliba bakoosha markii ay xuduudka ku jira 2010 ayaan anigoo xildhibaan asaas oo kaleeto ka baxay meesha la yiraahdo xamar oo doolow ugu soo tababaray 300 oo ciidan ah ee la soo hubiyay waagaas dagaal bay ku galeen kala barow bad dadka iyaga ahaa ilaa xudur qabashadooda wayba dhinteen ma fahanti wixii ka soo haray
waxaa jiray 100 askari oo ururka oo mar kaleeto la hubeeyay tababaradii loo soo qaadahayay baydhabo iyo hawsheeda ma suurtagelin maadaama ay xuduud ku yaaleen laakiin ciidamadii inta la tababarahayay ee la dirahayay ee gobolada loo dirahayay iyo lagu xoojin karo oo lagu sameyn karo hadda markuu dagaalku dhacay oo xaaladdu ay taagnayd run ahaantii xagga hiiraan iyo gobolada dhexe waxa caawimaad ka geysanaya ciidamadii ama kumaandoosta ahaa ama gorgorka ahaa oo tababarnaa oo qalabka haystay weey waxa soo dhan deegaanka ma gaarin waxa muhiimka ah oo aan xukuumadda Soomaaliya aan ugu baaqaynaa kalena hadlaynaa inay xagga la dagaalanka cadawga iyo difaaca qaranka Soomaaliyeed ee xuduudda in la gaarsiiyo ay tahay deegaankaas xag amni dayac xoog badan baa ka jira waa macsan in la daboolo in laga maarmaan ciidamada Itoobiyaana jooga Bakool maxay qabtaan ciidanka Itoobiyaanka ciidamada Itoobiya jooga waa kuwa hadda Bakool lagu dagan yahay runtii markii la sheego xudur bay joogaan waajid bay joogaan gobollo kale oo waxay joogaan Soomaaliya joogaan haddii aynan ayagu joogin kuwa ayaga ah xudur iyo waajid iyo meelaha hadda inta kaliya shacabku hadda ku dhaqaaqay ka jiray ma jireen waan uga mahadcelinaynaa dawladda Itoobiya waliba ciidamada ayaga ma aha AMISOM waanan AMISOM way iyaga ayaa ciidanka Itoobiya dawladda ayaa kharashkooda shidaalkooda hubkooda qalabkooda raashinkooda waxooda gacanta ku haya marka wax la fudaysan karo maxay Itoobiya maxay dan way ka leedahay ciidan aan AMISOM ahayn sharciyad haysan inay Soomaali joogaan hub siiso shidaalka bixiso maxaa ujeedada ka leedahay waa la ujeedo inay caawiyaan dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliya oo ka codsaday inay gacan ka geystaan oo dawladihii waagii ugu horeeyay aan ka codsanay ka jawaabay oo qaran Soomaaliyeed inuu jiro villa Soomaaliya in calan laga taago dhig wiilalan AMISOM ahayn waxaan ahayn oo Itoobiya ayaa u daadiyay dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedna mararka qaar kood siyaabo kale u sameeyaan arinta iyada waa mid jirto xaqiiqo oo la indhatiri karin midda labaad ayaga laftigooda cad ugu gudbahaya hadayna keenin oo aynan wax ismino sida haddaba ay ugu gudbeen ugu sameynayaan yey u tahay inay kula diraan gudaha intay gudahooda u soo gali lahaayeen marka baahi budaqabe iyo biyo qabe way isku baahan yihiin waa waxaan isaga baahanahay 10 sano ka badan waa go'doon Bakool diyaarad baa tagi karta meelaha qaar diyaaradu ma tagaan gaadiidka dameerka ama kareetadana waa laga diiday nolosha waa noocee dadka maxay ku nool yihiin nolosha adiga sida ay tahay dadka noloshiisu sida ay tahay waa qiimeyn kartaa abaarna u dheertahay maciishadu say qaali u noqonayso wax diyaarad lagu geeyay sida dadka noloshiisa xaaladiisa ay haanayso guud ahaanba abaarta wixii xoolaha haystana ka dhamaadeen wixii kalena sida noqdeen hadda aniga arinta aad iyo aad xanuunka igu la waxa weeye kuwa xuduuda jooga baba loo qaxay kuwa xudur iyo tagi waay waajidii ashaabku ay ka celiyeen garas weyne joogay muragaabay joogay buurdhuxulo joogay tuulooyinka inta u dhaxaysay bohol garas joogay aqbeeday joogay dadkaas way qaxeen meeshii bay tageen markay tageenna waxa weeye iyagoo qaxay oo meesha jooga yaa haddana dagaal ku qabsaday qax labaad bay gudaha Itoobiya u sii galeen marka iyo kuwa xagga ka qaxayba iyagoo oo dhul abaar ah waxay sameeyay geedo hoostooda joogaan wixii aan haynay markaan u sameeynay shacabka iyo kuwa dibadaha jira jaaliyada aan la hadalnay kuwa Itoobiya dawlad deegaanka aan tagnay oo la hadalnay wixii loo keenay waxa soo dhan wax dadkaas wax ka qaban kara xaq biyo iyo xaq cunto ma jiro arintaas waxa ka jira arin saameyn bini'aadanimo leh oo dadkaas run ahaantii goboladaas degan kule oo hadii aanan dawladda Soomaaliya iyo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba aan dadaal dheeri aan la sameeynin arin keeni doonta wixii dhacay 91kii 92kii xaalad macluul ah oo aan wax ka qabasho lahayn in badan oo Soomaaliya maanta nool ah inay u dhintaan suurtagal noqon karta ayaa meesha in Bakool amnina heli waayo nolol wanaagsanna laga heli waayo caafimaad iyo waxbarasho ka jirin waxa la yiri waxa sabab u ah dadka matala dadka halkaas ku nool oo adigu qayb ka tahay ma qaadaysaa mas'uuliyadaas wallahi waa runtaa weey mas'uul baan ka nahay in kasta oo anigu hadda aan ku cusbahay baarlamaanka federaalka ah oo hadda soo galay in badanna shacabka iyo dadkaas naf wax ka weyn oo u jira inaan u hurno u dagaalano xudur in la qabto oo ashaab laga xoreeyo
maalinkaas soo galahayay 17 wiil oo walaalkii ku jira ku dhintay markaan runta ku sheego aniga gacantayda waxay dadka xoreeyay kamid aha wixii aan tabar iyo hawl u sameyn karayna waa sameynay ilaa haddana waa ku dagaalamina koonfur galbeed markaan ahayna waanu ku jiray halganka iyo dagaalka iyo barnaamijkiisa hadda markaan xildhibaan noqonayna waxa ugu horeeya ee hawsheeda iyadoo xukuumadda dhisahayo oo damaci uu jiro iyadoo oo golayaashii gudiyadii baarlamaanka la dhisahayo intaasoo dhan waan ka maqnaa waxaan nooga maqnayn oo nooga waxasnayn inaan bulshadaanada la qaybsano inaan la dhimanno inaan la noolaano inaan hawsheeda samayno wax hadda aan ka qabnana ma jirto ilaa haddana diyaar baan u nahay inaan golayaasha Soomaaliya iyo dawladda iyo heer baarlamaan iyo heer xukuumadeedba aan dhulkaasi sidii indhaha dawladda loogu qaban lahaa dawladda waa cusub tahay runtii dawladdii horena cabashada waan u gaarsiinaynay middan hadda aan baarlamaankeeda ka mid nahayna u fariisan mayno in dadkaas la sabata bixiyo xag amni haday tahay iyo xag abaar iyo xag macluuleed haday tahay rajada ku muuqata ma waxa weeye in Ethiopia in si caawiso oo ciidamada new police iyo ciidamada Ethiopiaanka ah ee boqol ka sii dagaalamaan oo ciidamada Soomaaliyeed ay taageeraan mid waxa idin muuqata rajo aan taas ahayn oo in la helo ciidan Soomaaliyeed oo dalkooda difaaca waa mahadsantahay waa su'aal loo baahan yahay waxa weeye cid kale cuudeedii iyo hawsheedii iyo barnaamijkeeda waxa ay dadka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed iyo goboladaas ka qabanaysa ma jirto waa inaan isku tashanno waa inaan dhisano cududeeni wiilasheeni waa diyaar ciidankeeni iyo dadkeeni inaan tababarno inaan qalabayno inaan iska celino wiilashan imalawayaasha ah oo maartay dalkii iyo dadkii deganaanshaha u diiday si bulshadeena iyo shacabkeena u noolaadaan ay waxbarasho u helaan oo caafimaad u helaan oo biyo u helaan oo jidad u helaan waxa soo dhan waxa saldhig u ah in amniga wax laga qabto cadawga laga kiciyo taas ayaa rabnaa kan golayaal ahaan inaan xooga saaro run ahaantii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaruhuba way ku baaqeen markii ay xilka qabteen inay xooga saarayaan amniga arinta gacan baan ku siinaynaa waan kala shaqaynaynaa waan ooga horeynaynaa haday qaban waayaan waa kula xisaabtamaynaa ilaa muddo intee leh ayaad filaysaa inay Soomaaliya gaar ahaan Bakool ay go'doon ku sii jirto والله سيدا هذا أي دولته ورقاقي أو قانكو قاطع حكومته قاطع ملحوينها وقصرية وإعلامي إني مدير أرنتا يضع أو بلا وحلقة قوان دون أو لا يجوب دوران كو هم بدأ. وايا وكوسو جبينيا وحنو ملاينيا إن أنا هر أقول بدنا برنامج الصوماليات قف حلبان oo ka taga Muqdisho oo taga deegaan doorashadiisii oo dadkiisa ku garabad gala dagaal ama ka soo warama xaaladaha bini'aadanimo ka jira hiiraan baa hadda ku aragnay Bakool waa kan hadda aniga kula joogo adiga waa tagtay maxaad fariin oo aad ka wadaa dadka la matalo oo aad la wadaagaysaa baarlamaanka kale adiga kula midka aan wali laga yaabo 20 sano ayuu baarlamaanka ku jira wali aan deegaankooda tagin wallahi dadka fariinta aan ka wado la matalo adduunyo aakhiraba waa la isweydiinaya dadka xil u qaatay aad waxaysay inaad garabkooda istaagto inaad noloshooda iyo deganaashahooda wax ka ogaato inaad wixii dawladda ay ka sugaysay la gaarsiiyo oo laga hormariyo oo codkooda uu gaaro waxaanan baarlamaanka Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreysa oo haday xukuumad tahay iyo haday madaxweyne tahay iyo haday amni tahay hay'adaha ka shaqeeyaba haday iyagu si fiican u shaqeeyaan oo ay ku kontroolaan oo ay u hormaraan deegaanada ay ka soo jeedaan waxa weeye waxa soo dhan way saxmayaan taan anagu inaan iska joogno oo aqal cad isaga jiro mushaarkaana ku qaadan aan sameynana dadka anaguna kaba baxay gudnimada iyo dhibaatada haysata annaguna meel ma gaarayno oo maalinba mid baa wiilasha dhagar qabayaasha ay ku qarxinayaan ay ku dilahayaan si aynan hawsha u dhicin waa in aan arinta iyada ah annagu koow aan ka bilowno inaan u istaagno oo deegaanada ka soo jeedno diyaarino cuudi lagu difaaci lahaa iyo dadkii lagu difaaci lahaa dawladda iyo xukuumadana aan hawsha iyada kala shaqeyno oo aan cagaha kaga istaagin kura kontroolo inay waajibkooda fushaan qabtaan haddii ay qabato si fiisil rabay u qabataan oo garab siinana waa diyaar
haddii kale oo ay noqoto inaan qaban waayna inaan saxan annaga laga rabaa madaxweyne xasan sheekh 2012 markii la doortay sidaan oo kale ballan qaaday inuu al-shabaab ka adkaan doono madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka dambeeyay 17 laba sano sheegay inuu al-shabaab u adkaan doono xasan sheekh markale hadda wuxuu sheegay al-shabaab inuu ka adkaan doono waxay noqotay silsilad ballanqaad aan dhammaan marka rajo ma leedahay inuu dhamaan doono arrinta anigu waan kuu sheegayaa waxa sabab u ah ballanqaadkii la sameeyay in la sameey waayo Soomaalidu rag isku qaybay rag iska qaybay systemka jira hadduu isagu isku qaybo oo dawlad goboleedyada iyo hay'adaha federaalku isqabtaan haddii waxa weeye xukuumadda iyo baarlamaanku isqabtaan haddii madaxweynaha iyo baarlamaanku isqabtaan haddii sidaa la isugu dhaganaado waxa cid ay ku fikiraysi waxay doonaysaa la gaari maayo waxaan ku baaqayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadduba ballantii ay qaadeen ee ahayd in dad heshiis ah caalamkan heshiis la ah in lagu dhaqaaqo oo dawladaha dariska nala aan heshiis la noqon ee annaga dhaxanadan aan heshiis noqon cid dib wax loogu raacana aysan jirin shuruucda iyo dalka wax u dajina la dhowro cid ayadu wax goona isbida inayna jirin taa haday dhacdo oo si Soomaalinimo ah oo wada jir aan ugu dhaqaaqno caqabadaha jira waa laga adkaan karaa sida ugu dhaqso badan baan loo baabi'in karaa oo meesha looga saari karaa santa su'aasha ugu dambaysa rabaa inaan ku weydiiyo mudan xildhibaan si guud Soomaaliyaad xildhibaan u tahay dadka Soomaaliyeed aad matashaa 15 sano ka badan dadkan ku nool Soomaaliya dhibay qabaan magaalada aad joogto Xamar maalin walba qaraxa ka dhaco dad lagu laayo caruur iyo dumar iyo dad kale oo marasa ay ku jiraan askartii dawladda waqtiga qaar dilal geesta oo ka ugu dambeeyay 2 maalin ka hor dhacay wadooyinkii madaxa qaranka waa xirtaan oo ganacsiga magaalada aad looga dayrinaya Soomaaliya meel kasto kamid ah dhibkaana ka jiro maxaa weeye baaqa aad u dirayso madaxda dawladda Soomaaliya oo adiga ku jirtid madaxaasa dadka waxay idinka filayaan madaxda iyo shacabka Soomaaliya labadaba baaq baan u dirayaa haddaan gacanta isqabsanin oo wada jir uga shaqaynin madax kaligeed waxa ma qaban karto shacabna ma qaban karo waa in aan niyeysanaa waxaan aan isku hayna in aan isku qabanin wiilka Soomaaliyeed ee al-shabaabka ah qaraxa sameynaya ee dhibaatada geysanaya meel iskaba joogo lika meel kala lamada ma ah guri buu joogaa dad baa ka warhaya hawl baa waxaynaya in dadku ay u istaagaan horta inay waxaas iska qabtaan oo soo sheegaan dawladda iyo hay'adaha amniga oo baarlamaanku ku jirana in loo istaago in dadka waxa laga suuliyo oo si dhab ah loo aado oo dadka lagu toosan yahay inay waxa ku lug leeyihiin ay gacan siinayaan laga ilaaliyo hay'adaha dawladda isla markaana si tafaatiran oo ku talagal oo qorshaysan madaxdu ay u hogaamiso in lagu qaado wiilashaas iyo dadkaas ka shaqeynaya ku shaqeynaya ajaanibta in dalka iyo dadka laga qabto laakiin waxaan rabaa al-shabaab qof ogol guri ku haysto jacayl ku haysto majirada waa baqaan cabsiga u haystaan haddii canshuur bixiyeen mas'uuliyiin shacabka saar waxa canshuur inay bixiyaan haddii canshuurta ay bixiyeen oo ay ogolaadeen in amar inta ku soo rogtaan oo wadooyinkii laga xirtay ay raali ku yihiin oo dushoodii lagu dagaalamayo waxa kale shacabka laga sugay maxaa looga baahan shacbiga waxa weeye dawladuna way ku horkacaysaa oo sidii la isaga fadhiyay la iska deynayay inaan la deynay waad ogtahay 4 sano oo kombolomita ah oo hadda ugu dambeysay ashaab intii la diray wax yar bay ahayd ma fahanti haddii arrintii la qaado oo hay'adaha dawladda la dagaalmayo oo la dagaal galo oo la dhaqaaqo oo meel walba looga daba galo shacbiguna uu kala shaqeeyo arrinta iyada dawladdii iyo dadkii waxaas waa la soo afjaraya cabsiduna way baaysaa ganacsiga wax bixiyeen la dooni maayo meelaha ganacsiga ku jiro meelaha ugu badan ee al-shabaabka qariye ee gacanta ku haya weeye ayaga laftigooda waxa weeye markii si dhab ah dagaalka iyo hawsha loo galo waxa weeye waxay ka shaqeynayaan waa lagu xisaabtamaya al-shabaab inuu meesha ka shaqeysto loona shaqeeyo lana hoos qariyo ma soconayso aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya wuxuu iga warramayay xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan safarkii uu dhawaan ku tagay gobolka Bakool xaaladii uu ku soo arkay ee bini'aadanimo iyo mid amni